Ilintu maxal baa intii aan noolaa aragnimo iyo filan kama dhaxay nolosha dhanka haasawaha ka hor waa inaan soo bilaabo waxaad ahayd qofkii ugu horeeya nafteyda u hibeeye indhahayga adigoona ay kugu ilbaxayn igamana anaa dib u heshid balse waan iscaloladkee kartixumo awgeed ayagmada iga qabanaysaa afkayguna juuquu gabay cabur iyo ciilkaaba ayay dhuuntaydana ula qilaadahay canuufta ana awoodi laadahay inaan ilmada ceshado wax waliba ay dhacay siday u dhaceen muhiim maahan laakiin muhiimadu waa inaan si xad dhaaf ah kuu jeclahay oo aan kaa maarmay wadnahayga dhaqanka ayaa iska kaa jeclaaday kala maxaa ayaan dara ahayd maalintii aad igu oran jirtay hadalladaadii beenta u badnaa ana aan u haystay run ma ilaawi karo ma dafiri karo mana beenin karo intii kalsooniyaheed aan ku siiyey sababtoo ah ruuxaan wax kalsooni ah u qalmin ayaan ku kalsoonaaday naxariis aadan u qalmin ayaan kugu dhaaway qadarin aadan mudnayn waan ku siiyey balse intuba kama qabo wax qoomama oo qofka gobka ayaa lagu yaqaanaa wanaagii uu fadho dabadeedna loogu badalo xumaan ixtiraam qadarin dadka nagu deeqa misana lagu badalo sidaan iyo qoorsi aad iyo aad ayay xanuun badan tahay marka qalbiga aad ka oynayso dibnahana ka dhoolbilayso adigoo dadku muujinaya farxad balse aadan faraxsanayn maxaa ka xanuun badan indhahaada baraado la gaduutay balse marka lagu weydiiyo aad ugu warcelinayso cidda ayaan hadda kasoo toosay maxaa adiga waa beeniyey run foolka wajiga u tilmaamaya laakiin carabkuu beeniyo waa ilmeynayaa hana mooda in aniga ilmada kuu qabayo maciishoonayaa taasina aan kusoo jeedso baa hore ayay laabteyda ka tirtiray beentaadii aad malabka marin jirtay balse oohintaan iga dareerayso way caafimaad iyomana ahan daciifnimo laakiin intii aan calaacaan wadi lahaa sidan ayaad xal ii noqotay ama kaliyaana noolay nafsi aan dhammaan